qofkiisa qofkaygu waa qaali adda caafimaadka adduunka ayaa hadda ku dhawaaqday in coronavirus lagu sheegi karo xanuun caalami ah taas oo ay macnaheedu tahay inuu dunida oo dhan ku faafay warkaruuhu khatar weeyaan qaradaha gadii laga qaylshin sananta qofnaba haka qaadina maxamed nuur ayaa jacayl dartiis waxa uu isaga soo tuuray buundada Ansaloti ee degmada Waabari si uu u muujiyo in jacaylka haya uu yahay mid daran yaqad balog ti wala baylabana hade iga qad balog ti wala baylabana hade ballanqaadka iyagii xukuumaddan waxaan ku wari inta ugu badnayd 158 naga dhamaatay labada sano waa faakihaysi iyo waxa weeyaan iyo wixii Nimcaan Xuseen Jimcaale waxa uu cabay sunta dooliga kadib markii loo diiday gabar uu jeclaa naftiisa oo halis ku sugan ayaa la geeyay xalay isbitaalka Kalkaal ee magaalada Muqdisho way badan kuma narag warkaagina man maqale iga waal artayeen noloshii cusbayd waxay furtay buukalo waxba sakay badalay ka baxay hawadii adagay الزاني إلغي يا والزانية إليني الزاني شرموتك يا والزانية شرموتين horta fanka dar ilaahay baan uga baxay waxana ay ma qorshaysna markaad hor ilaahay u baxdo ilaahay markaad hor ilaahay si tagto ilaahay uu ku siinaya adigu ma sha Allah no nadafa nacabku darbiyada hajiro cadogu darajada hawaaye nacabku darbiyada hajiro toban kun waa ku qaatay aniga 10 isku xiran waa ku qaatay oo wallahi 10 isku xiran maaragtay waa ku qaatay marka aniga hadda adiga bilaashan ku shaqeyn karaa nin adeerkaya tahay waa sideeda aan wax kaaga heli karaa moqta aad iyo aad ma hasantiin ciidamada amaankana loo shaqeeyo saxaafaduna soo wacanay u jabinaysa malaayiin qof daawanaysa waa ciyaar kalaasika anoo ku ogeyn inaad bartaan astaghfirullah intaan ku jeclaa waryaa mi maqlaysaa jinnigaaga waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay Soomaalimiya alarki maysid ilmadan qobi jiriyo oo intaydiye iyadoon ilaahay iyo labadayada uu mooyay cid kale ogeyn ayaanu degdeg u soo habaynay laba balooko gabla waa la guursadayaa gurixa wayeelatayaa miduu gaara yeelatayaa sheekh waxaan ku weydiiyaa aniga iyo ninkeyga haddii aan isku dhacno oo markaas aan waalidkiis aan wax gaarsiiyo oo caayo ma kala furmeena waa xanaaqay lada ku dhasho waxaasaan dhahay